Kii weynaa kala gooyay dawladdu ballan qaaday 2017 hase yeeshee beynoobayna bishu waa November waa xilli doorasho shacabku codkooda ay ku bedelan doonaan waxqabadka iyo fulinta ballanqaadyadii lala galay kal hore warbixintan waxaynu ku soo bandhigi doonaa dhagaxdhigyo kala duwan iyo ballanqaadyo ay xukuumadda madaxweyne Biixi ka samaysay deegaanada degmada Salaxley oo dhawaan uu tagay deegaanka kala gooya oo ka tirsan degmada Salaxley waxa dhaam weyn xilliyo kala duwan ka dhagax dhigay xukuumadda kulmiye kaasoo baahi weyn ay u qabeen dadka ku nool Salaxley iyo deegaanada kale ee hoos yimaada marka laga yimaado ballanqaadyada madaxweyne Biixi uu jeediyay xilliga ololaha doorashooyinka sanadkii 2017 iyo qoraalada ku qoran buug siyaasadeedkii xisbiga kulmiye uu ku galay doorashada waxa sidoo kale xukuumaddu laba jeer ay dhagaxdhigyo kala duwan ka samaysay dhismaha dhaamka kala gooye kuwaas oo kala ahaa sanadkii 2018 iyo sanadkii 2019 amarkii wuu baxay in mashruucan la bilaabo wixii dhaqaale baysu noqon lahaa ee lagu bilaabi lahaana ku talagalkeedii waa la hayaa deegaankan biyo macna leh laga helo laba arrimood in dadka deegaanku xoolaha iyo beeruhuba ka faa'iideystaan iyo in magaalada Hargeysa ay ka faa'iideysto labada ujeedo yaa dhaamkan laga leeyahay dhagaxdhigyada iyo ballanqaadyada xukuumadda Biixi ee dhismaha dhaamka kala gooye ayaa 7 sanadood kadib noqday qowda maqashii waxnaha u qaban shacabka ayaana isweydiinaya halkii ay martay lacagtii loogu talagalay dhismaha dhaamkan xukuumaddiina dib uma naaray wax dambo hadal hayana ma naaray ilaa Hargeysa wax ka tari la dhaamkaas hadduu xidhmo baahi badan baa loo qabaa aad ma garat marka taasi caafimaad ma kuugu xiraayo maxaan ku diidi haddii maanta wax qabto ay helayso taasi hadalba ma leh sababta uu hirgeli waayeen waxaan aaminsanahay inaan xukuumaddu raali ka ahayn in mashruucaas laga geer galo 2018 markii la dhagax dhigay barnaamijkaas sida runtii ay wuxuu buu ahaa mashruuc xukuumaddu aanay maxaan ku dhahay commitment ama aanay ka go'nayn laakiin ay ku riyotay un beexeed xukuumadda ka go'naanshiyaha markuu meesha jiro in muddo yar fudud lagu dhameyn karo oo maxaan ku dhahay xukuumadda iyo hay'adaha la shaqeeya hadii isku tashiga la sameeyo oo maxaan ku dhahay si fudud u dhamaan karo madaxweyne xukuumaddaadu kamay go'nayn inay maxaan ku dhahay markay dhagax dhigaysay mashruuca kala gooyay manima waxba qaban oo 7 sano idin hayay xilka ayaa idin sheegay maanta cid aad dooranaysaan waxa idin sheegay cid aad dooranaysaan nin maalinta uu gudigiina galana wanaag iyo daacadnimo idin ku shaqeeya marka ilaahay xil u dhiibana idin hagar baxaya oo weligaa liibeen idin sheegeen baa dooranaysaan de ninka inta eegayay ee ka nixi waaye u qaban waaye maantaan qabanayaa ay dooramay idinka qabataa musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro waxa uu ballan qaadayaa haddii la doorto in xukuumaddiisu ay dhisi doonto dhaamka kala gooye oo dhismihiisa ay ku fashilatay xukuumadda Biixi musharax Cirro ayaa sheegay inuu noqon doono ballanqaadkani midka ugu horeeya ee uu ka fulin doono deegaanada Salaxley muddo xileedka xukuumadda wadani wadada cad ee Talyaaniga bilaabay ee wali qabiyada insha Allah waa dhamaystiraya dhaamkii weynaa kala gooyay dawladdu ballan qaaday 2017 hase yeeshee beynoobayna insha Allah kaana waan dhisaya iskuulkii boardingka waan ugu soo horeysiinayaa boqolka maalmood ugu horeeya insha Allah waa soo celinaya iskuulka hadii la yiraahdo
dooro nambarka koowaad warqadda codaynta doorashada madaxweynaha ku dooro musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro isbedel iyo iskaashi qaran.